الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij dabcan ka duwan barnaamijyadii hore ee aanu idin la wadaagi jirnay barnaamijkani waa barnaamij bishii Ramadaan ka socday TV-ga Saab oo ay iska kaashadeen Saab TV iyo Sky Top Chef oo ah hoteelada Sky qaybta cunto karinta barnaamijku caawa dabcan uu ka duwanaanaya barnaamijyadeena hore ardayda bisha Ramadaan halkani lagu tababarayay ee baranaysay noocyada kala duwan ee cuntooyinka ayaa caawa dib u daawan doona barnaamijyadii bisha Ramadaan ee barakaysan laga duubay lana sii daayay isla markaasina arday kasta waxa iyadoo macallinkii tababarayana fadhiyo uu barnaamijka dib uga dheehan doona wixii la baray wixii uu ka qalday barnaamijka ka gudbay ugu horeyn waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mulkiilaha hoteelada Sky Filsan Jaamac Maxamed oo iyadu inooga warbixin doonta waqtigii barnaamijkan la bilaabay waqtigii fikradani ku dhalatay Hargeysa goobta ay ka degan yihiin ee lagu tababaro cunto kariyaasha kala duwan ee hoteelada Hargeysa badi hadda ka howlgala iyo goora waqtiyada kale ee barnaamijkan sii socon doona hadii ay golaado Filsan ayaan mikrofoonka ku wareejin doonaa aad iyo aad baan islaameena wuxuu igu dhashay barnaamijkani markii aan waxbarashadeeda soo dhameeyay taasoo aan ka soo qaatay qurbaha oo aan mar walba u bixi jiray si aan wax u soo barto alxamdulillah waan ka gaadhay natiijadeedii haddana maan joojino wali waan wadaa haddana waxaa igu dhashay markaan hoteelada sameeyey baahidii iga qabsatay sheefafka iyo ajaanibkan keeninay ay waxay noqotay inaan dalkaygii aan u hibeeyo cilmigaygii waxaan helay maasha Allah dhalinyaro jaamacadaha ka soo baxay oo u baahan xirfadan inay qaataan dhalinyaradii baan deetana inaan tababar siiyo aan ku guuleystay dhalinyaradii baan deetana ubixii aan beeray markuu bislaaday bay noqotay inaan Saab TV aan u gudbino oo iyaguna idin soo gudbiyaan maanta waxaan daawan doonaa insha Allah bishii Ramadaan barnaamijyadii hore aan TV-yada hore ka sii deyn jiray anu dhowr TV ka soo deyn jiray waxaan duubi jirnay Ramadaan ka hor laakiin kan waxaan duubnay bishii Ramadaan anagoo ku dhex jirnaa barnaamijkan saaka duubno baa waxa soo baxay inaad habeenkii leedin soo baahiyo ama leedin keeno halka waxaad ka arki kartaan inay tiknoolajiyadina isbedeshay dadkii naga duubin dad kartila ahaayeen TV-guna uu ahaa TV kartile oo u tababaran inuu dadka u soo baahiyo wixii uu naga qaaday dhalinyaradii duubisay ee soo bandhigisay ee waxaan sameeynayna waxay ahaayeen dhalinyaro tababaran oo xirfadooda wata oo iyagoo sooman marmarka qaarkood aan soo raacinay 13 cashar inaan hal maalin sameeyno maalintan ugu yarnayn casharada ugu yar sameeyno 3 baan sameyn jirnay marka halka waxa ka muuqata quwad dheeraada alxamdulillah rabbil alamin ilaahay bana siiyay wana mahad ilaahay loo celiyo ma sha Allah baan leenahay TV-gaasna TV aad u soo baahiyay buu noqday annaguna insha Allah joojin mayno dadkayga waan soo gaarsiin doonaa waxaan cilmiyan hayno haddaan horta idin sheegno meelahan Hargeysa ka deganahay iskuulka qaybtiisa iyo hoteeladu bay ka degan yihiin waa masalaha Sky Hotel dhinaciisa bari ayuu ka degan yahay iskuulku positionka labaad aan leenahayna waa Sky Dream oo ku yaala tiyaatarka floorka labaad iskuulkuna wuxuu ku yaala tiyaatarka qaybta carwada eegaysa casharadan soo baahinay waxay faa'iido u lahaayeen aan mar walba dadka u soo baahinay inaanay ahayn bariis iyo baasto keliyata iyo carbohydrate guryaheenu wada yaala ay ahaayeen cuntooyin caafimaadka qayb ka qaadanaysa qofka macaan kale waan soo baahinay ka dhiikar kale ka cholesterol kale iyo qofka weyn nafaqeynta ciyaalka umusha programku saas isku wada jiray waxa kale ku jirtay faa'iidada Ramadaanta suxuur baan ka soo bilownay afur baan keenay cashan keenay haddana waxaan ku xigsinay casharadii iidaha aan ugu talagalnay iyo casuumadaha yar kooban waxaan dhaafnay maslihiin way ku jireen meesha waxa jirta cuntooyin aan ugu talagalnay dadka waaweyn ama dadka dhalinyarada maanta waxaan sameynaa kale garowga ayaa waxaan ku sameynaa inaan ama digaag ama kalluun ku sameyno faracado oo kale la mid waxaan sameynaa kale shuurada oo duqad lagu moofeeyo moofe la gelinayo deetana sidii keega loo goosanayo waxaan sameynaa cuntooyinka wadaniga ah inaan casriyano si looga maarmi karo bariiska iyo baastada waxa kale si cajiib lahaa oo si farxad leh isaguna aniga xaggayga maskaxdeeda galiyay laxooxdii inta habeenkii la garaaco subaxdii la dubi jiray oo isbedel ku sameynay iyadoo inta muus lagu sameynayo si maskaxdii bini'aadanka loo kobciyo aan inta imika la garaaco isla imika ilmihiira loo dubayo ama waalidkii loo dubayo oo ka duwan laxooxdeeni taasna waan ku soo kordhay dabcan sidaynu xusnay barnaamijkani
wuu ka duwan yahay barnaamijyadii kale ee bisha barakaysan ee rabadaan ee iminka gebagabada laga taagan yahay baxayey bal iminka waxaan kusoo dhaweyn doonaa wariyihii saab t v ahaan barnaamijka noo daadihinayey waayo barnaamijkan wuxuu uga duwan yahay barnaamijyadii kale waxaa la doonayaa marka ugu horeysa waktiga ugu badan ayuu duubitaankiisu qaadanaya qofka intan oo cunto ee kala duwan isku daraya laftiisa waxaa la doonaya inaad atashkaagu ama aad markasta maskaxda dareenkaagu taagnaado oo aad ku tiraahdo taa maxaad uga jeedaa taa maxaad uga jeedaa qodobka saddexaad ee isaguna ku jira waxa weeyaan ee muhiimka ah dadka loo gudbinayo feedback ka soo noqonaya waayo imanka dhibaatada ugu weyn ee dadku la kadeedan yihiin waa cuntooyinka intaas oo xanuun oo kala duwan bay dadku cunayaan caafimaadkoodii wax u dhimaysaa markaa dadka oo dhan way u heelan yihiin waana muhim inay helaan cuntooyin dheeli tiran bal hibo ibraahim oo saab t v ka tirsan baan u gudbinayaa barnaamijka bisha barakaysan rabadaan ay waday iyo culaysyadii iyo siday uga dabaalatay hibo yar ayaan soo dhaweynaya bismillaahi raxmaani raxiim asalaamullaahi calaykum dhammaantiinba aad baan idiin salaaminaa daawadayaashayada sharafta leh caawa halkan waxaa lagu soo gebagabeynayaa barnaamijkii cunto karinta ee soddonka cisho ka soconayey tv-ga saab iyo sidoo kale skate top chef school hortay barnaamijku aad buu noogu socday soddonkii rabadaanba aan dhalinyaro ardaya oo maxay toolahdi baratay xifradii cunto karinta iyaguna aad noola waday iyo sidoo kale filsan marka dhibaatooyinkiisa laga waramayay barnaamijka waxa aad noogu darnayd iyadoo ay rabadaan tahay maxay toolayahay xilligu kulaylihii ay tahay inaan waxaan duubaynay sidoo kale ardaydu ay dababka ku jireen iyaguna wax karinayeen iyo sidoo kale kamarmaankii iyo anigoo maxay toolay kolba yara daalaynay mooyaane sidoo kale barnaamijku aad buu u fiicnaa sidoo kale barnaamijku wuxuu kaga duwan yahay barnaamijyadii kale cuntooyin aanad hore loo arag ayaa iyagana la sameynayay oo dadkii u fiican sida dadka macaanka la dhiikar kale xanadoo dhan wahagaag intaasi aynu kaga nimaadno warbixinta ayna siiyeen filson iyo wariyihii daadihinayay barnaamijkani hibo iminkana waxaynu u geli doonaa dhinacii ardayda haddaba ardaydu casharadii la baray wixii ay bulshada u gudbiyeen bisha rabadaan qaladaadka ay galeen oo macalinkiina halkan fadhiyo iyaynu dhinacooda iyagana u geli doonaa iminka daabasho wanaagsan aad bay ugu fiican tahay aroosyada casuumadaha rabadaanta wabaalkaale araga cuntadan waa cunto fudud waxa weeyaan waqti kooban bay qaadanaysaa okay anu haddaan ka hadlo cuntada aan ugu jeclahay waa biisaha aan aad u jeclahay waxyaalaha igu kalifay inaan cunto karinta barto oo aan waxaan ku yidhi cuntada aan halkeeda dhigo lamberko waxaa ka ahaa waa biisaha waa hagaag daawadayaal waxaa soo daawateen laba muuqaal oo kala ah cabdiraxmaan maxamed cumar cunto kariye iyo cabdicasiis faysal cali bal ugu horreyn waxaan doonaya inaynu cabdiraxmaan maxaa ka qaldanaa isdul taagno cabdiraxmaan waa kani hor fadhiya cabdiraxmaan waxaan doonaya su-aasha ugu horreysa aan doonaya ku weydiiyo adigoo cunto karinaya ayaad muuqaal duubteen bulshadii soomaaliyeed ee la doonaya inay u faa'iideysaan ayaa muuqaalka loo gudbinayay markaad muuqaalka duubaysay waa qodob ay horta wad qoslaysay sababta qosolka keentay maxay ahayd ta kale su-aashayda labaad kelmad suuqdiyabaad isticmaasha waxaana waxaa la doonayaa dadka soomaaliyeed ku daawanaya o dhan inay ka faa'iideystaan ma cid gaaraad muuqaalka u duubaysay waxaad tidhi kelmad suuqdiya oo ah kaale arag taana maxaad ayadan uga jeeda marka hore waxaan sameynaya waa kastar waa cunto macaan waa cunto culus bay ahayd cuntada waxaa ahayd dadka aroosyada xafladaha munaasibadaha marka kelmadaas saas baan u yidhi darteed kelmadda kaale arag may waxbaan gudbinayay waxa markaan kelmadeedi kaale arag dadkiiba qoslay annagoo waan la jiibin halkaa intaasi aynu kaga nimaadno cabdiraxmaan iminkana cabdicasiis faysal cali ayaynu imanaynaa cabdicasiis wuxuu sameynayay saynu soo daawanay biisa laba kelmadood buu isticmaalay wuxuu yihi aniga ayaa jecel waxaan u gudbinayaana waa bulshadii soomaaliyeed oo dhan oo daawanaya in allaale intii ka faa'iidaysanaysa sidoo kale noomu sheegin inta waxay ka kooban tahay biisadu way ku cusub tahay dabcan dadka soomaalida dhexdeeda inta waxay ka kooban tahay dadka qaadan kara iyo dadka isticmaali kara ee
dheelitir ahaan ay hadhow faa'iido u leedahay sidoo kale wuxuu yidhi anaa jecel cabdicasiis ma waxii aad jecesha doonaysana dadkana la jeclaatay mise wax dadka faa'iido u ah ayad waday بسم الله الرحمن الرحيم horta kelmadan anaa jecel waxaan ku keenay kolley waxaad naftaada la jeceshay ayuunba dadka kale la jeclaanaysa maanta hadday noqoto hodheel hadday meel kale noqoto asxaabtaada ugu dhow ayaad waxa weeyaan geynaysa marka wixii naftaada kusoo baxa aad iska aragtid waxaynu kuga habboon yahay asxaab family gebigood ku wada magaranaysaa waad la wadaagaysaa marka kelmadan anaa jecel waxaan u keenay waa sidaa inay dadkii la jeclaadaan waayo biisuhu iminka iyo cuntadan fast foodka dalkeena aad bay waxa weeyaan isticmaalkooduna kuma badna way ku cusub yihiin marka waxaan doonayay dadkii inaan aan wax baro iminka biisaha ka saasaan kelmadda ku mid maaha qaar baa xanuuna qaba qaar baa 150 wax maxay ka kooban tahay horta ugu horreyn horta waxyaalay ka kooban tahay videogii ku jira amaan malinayaa laakiin dadkan loogu talagalay biisaha kale qofkii caafimaad leh qaadi karaya cidda xanuunsan sida waa loo ogoleenba dhakhtar baan loo ogolayn marka ciddii caafimaadkeeda waxa weeyaan cuntada horta badanka waxa weeyaan dadka xanuunada qaba xanuunada macaanka oo kale dhiigarka oo kale wadna xanuunka oo kale dadkaas ma qaadan karaan waayo waxa weeyaan carbohydrate weeyaan marka iyaga ahaan caafimaadkooda inay u fiicnayn laakiin dadka dhalinyar timeka soo kacaya sidoo kale xoogga dadkaasaan badanka kula talinaya marka saasay dadkaasna saas ugu fiicantahay waa dadka dhalinyartaa soo kacaya dadka caafimaadkoodu boqolka yahay xataa laftiisa geeljiraa oo la siin karaya oo la bari karaya marka waka gastriga horta kolley wax saasa dhib u keeni mayso dadka badanka xanuunada culus qaba sida wadnaha dadkaasu kale weeyaan marka waxa weeyaan waka may dhakhtar ma yihi laakiin aqoon cuntada waan bartaa dadka u fiican tahay baan garanayaa ha marka anuu dhakhtarkii waxaan cuntada waan ugu dhigaan aqoonteediina oon leenay marka lafteeda dhakhtarkii waxaan cuntada haye intaasi aynu kaga nimaadno labadii arday ee hore aan isla soo daawanay qaladaadkii intii ay ku jireen barnaamijka cunto karinta ay galeen sidaad u wada jeedaanba imika waxaanu samaynay waa woofalka marka waa in aanu aadna kaaga casaan waa in aanu kaana caddaan waa inu sidaas shaaxid u ahaadaa marka dadku waxa aan u sheegayaa inay laxooxda iska daayaan cuntada ka macaan ay samaystaan quruxda badan leh laxooxdana ka indhaha waaweyn leh mashruucan waxaa fulisay iminkan waxaan umanaynaa muuse fu'aad muuse iyo marwe cawil salaan bal muuse aan ku horeeyo ugu horeyn muuse wuxuu sameynayey cunto la yidhaahdo wafal anigoo markii ugu horreysay waxaa laygu yidhi wax laga maarmayaa laxooxdii ama canjeeladii ama indhabadantii 100 magac baa loo yaqaana soomaalida dhexdeeda subax walba markay reeraha soomaalidu toosaan ay ku indha dilaacsan jireen talow sidee baa looga maarmayaa muuse ayaan mar kale ku celinayaa oo bal mar kale inoo faahfaahin doona sida looga maarmayo iyo waxa ay ka kooban tahay soo dhow marka koowaad waxay kaga maarmayaan horta qooshka marka la qaraacayo u dhibaato baday sababtoo baalkan caagga lagu qaraacayo feed baa lagala daalaa kadib horta taa way kaga maarmayaan oo kan mishiin baa la isticmaalaya haddaad doontaan kan wax lagu ridqaad ku ridqanaysaan waa easy way waa fudayd waa talabaad horta baasha laxooxda la yidhaha dadka siib ahaanba ragga calool bay ka soo saartaa tan kale laakiin waa furido waa isku dheeli tirantay sidaa darteed laba la is agdhigi karaya maaha si walba way ka faa'iido badantay waxay ka kooban tahay daqiiq bay ka kooban tahay batar bay ka kooban tahay sonkor bay ka kooban tahay beed bay ka kooban tahay xagga qooshkuu ka kooban yahay daqiiq iyo allahuma salli oo laabdilaac laga qaadayo gaastir laga qaadayo wada cilatay markaa dee waa idinku wada fahmaysaan labadaa ka fiican ama ka faa'iidada badan keebaa fudud marka la sameeyo waxaa fudud weefalka intuu doono ka fudud tan waa aniga sheegay oo hablihii faraha wada qalqalocsamay sidii u qaraacay dhibaatooyinka kale ay leedahay
bahalkan qaraacistiisa jaarkaa karaahiyeysta oo dhibsado ka seexan kari waaya sida islaamaha xanuunsanaya oo kale habeenkii bay ku sasaar xataa dhugdhugto waxyaabo badan bay kaga dhibaato badantay waayo muuse waxaan doonayaa inaan kala weydiiyo markii aad wafalta sharaxaysay dad badan baa ku daawanayay dad badan baa doonaya inay qooshkii kaga maarmaan ama laxooxdii kaga maarmaan adiga ayaa bulshada u gudbinayay u sharaxayay markaad duubaysay programka naftaada kalsooni daraa ka muuqatay dadkiina in wax la wadaagta doonaysa oo waxaan aad aqoon baad bulshada u gudbinaysa sidee bay isu qabanayaan labadaas qosol baa ku jiray inaad adiga laftaadu diyaar si aan ahayn oo kale diyaar maad ahayn miya horta laba dhibaato way jireen kow horta waan soomanaa midda kale hurdaa ka soo kacay inta labada tood aragteena hurdada badan marka cibaadada laga yimaado inta kale waa la jiifaa waa talabaade kamarad horta weligay kamarad ma hor istaagin ferastigii bay ahayd cunto karintana nafsad ahaanteeda marka hore u baranayay kadib haddana waan isbedelay inaan ku shaqaystaan bilaabay kadib maalinkaa programkana sabrise buu ahaa kadis buu igu ahaa kadibna waan iska xishood badanahay kadibna sidaa darteed baan laakiin insha allahu tacaala casharaanta dambe aan soo tabin doono si fiican baa idinku soo tabin doonaa insha allah xishoodka horta sidiisa waa wax mar inta u horeysa xishoodsa laakiin hadhow waad la qabsanaysaa sababtoo qof walbaa uu ka siman yahay psychology ahaan haddii loo eegana dee kamarad haddii ka hortaagantae dadna sidaa ku hortaagin adigaagu waa iska xishoonaysaa sidaa darteed baan markaa insha allah iskala qabsan doonaa xishoodkana waa iska diin doonaa okay diploma kastar saasay noo soo baxday waan ku celinaya waan kari waaye okay waayahay iminkana waxaynu iman doonaa marwa cawil salaan oo iyadana aynu soo daawanay waxay samaynaysay cunto la yidhaahdo diploma kastar dabcan iyaduna waa cuntooyinka hargeysa iyo somalilan iyo soomaalida dhexdeedaba ku cusub waxaan doonaa ugu horreyn marwa inaan weydiino inay horta cuntada mar labaad inoo sharaxdo sidoo kale qaladkay gashay cuntada waxay ahayd waa lagu afurayay waxaana ka ilowday sonkortii sababtu maxay ku dhacda diploma kastar waxa weeyaan roodhiyo la isku daray iyo laminiyad kadibna ofanka la isku geliyay xilli kasta waa la cunaa maxay ahaydee waa cunto adigu iska fudud oo iska macmacaana oo xilli kasta la cuni karo habeenkii maalintii waa la cuni karaa maalinta casharo badan baan sameeynay casharkan maalintaan sameynayay waxaan ugu talagalay macluumadeeda inay gaar cunto iyadaan ugu talagalay bismillaah waxaynu halkan ku haynaa caawa ardaydeeda ka mid a oo ardaydii programka soo jeedinaysay ahayd ardaydaas waxaan u dhiibay cashar aada u fiican casharkaasoo ah casharadan xoogga u jecelahayd qofku markuu wax qabto ama uu de wax sameynaya macalinku waxaa laga yaaba inuu casharadiisa casharo kamida u jecel yahay aadna uu xiiseeyo oo uu jecel inuu artisku isticmaalo casharka aan u dhiibay raxmo saleebaan wuxuu ahaa casharadeeda casharada ugu qiimaha badan leh casharkan waxaan u dhiibay wuxuu ahaa grill fish oo wato buu ahaa salad iyo wuxuu watay in yaroo shumbra ah ama waxa la saari karaya haddaan shumbrada laga maarmo binis casharkaas wuxuu ahaa casharada ka duwan waxaan u sameynay xitaa casharkaas maqlo gaara lagu isticmaalaa waayo wax saliida looguma talagelin ama wax dihana waana kalluun casharkii waxaa dhacday inaan usoo saarnay xitaa maqliyo jadiida casharkii procedurekiisii qoran aan siiyo sawirkiisii aan siiyo weelkiisii oo dhan oo cusub oon weli ardayda aan isticmaalin aan usoo saaro on ku dhahda casharka iska ilaali waa casharkan casharadeeda u jecelahay raxmo waxaa dhacday casharkii tiyo gacanta ku haysa inay khalkhashay oo ay casharkii qaraabisay halkaa waxaa ka soo baxday raxma inaan casharadeedii iyo kalaaskeedii iskuulkeedii dhiganaysay oo dhan aan intan halkaa dhigoon burkimo ku duuduubo inaan u diro 2 bilood internship ah raxma waxay samaysaa 7 barka subaxnimo gurigooda ka baxdaa 2 barkana shifti kasoo daadegtaa 2 barka shiftiga kasoo daadegto haddana dib waxaan ugu celiyey inay haddana sky dream oo ku yaala tiyaatarka 2 barka shifti ka gasho 12 habeenimo ka daadegto halkaa waxaa idinka muuqataa xilliga meedhan lahayd xilliga dharkeeda meedh lahayd xilliga gurigooda ka shaqayn lahayd wixii oo dhanba in dasbiinka lagu riday oo la saaray hawl culus halkaa waxaa iga soo muuqatay kartideeda iyo waxbarashadeeda iyo howlkarnimadeeda ay muujisay inay 2 bilood iyaduna saxiixii ku duugtay waxaan doonayay inaan ka hadlo wariyaha laftigiisu qalad bay gelisay hibo way ag fadhidaaye qaladkay gelisay waxaa ka mid ahaa maalin walba casharadan u dhiibno xafiiska laga soo tigareynayay
anaguna waan sii tiigaraynaya waxaan oranaya dee waan saxaynay tigtu waa saxdii waan saxaynay waxaan oranaya intaasoo cashar baa naga baxay waxaa jirtay maalmaha ka mida 12 cashar aan duubnay sidee mar weydin ka dhawaajisay casharkay leedahay bilaa sonkor buu ahaa casharada kale aanan ka qaybgeli karin laakiin kaan waan cunayay waxa dhacday inay soo garaacday markay shiftigii ka baxday igu tiraahdo waxa naga ka maqan filsanay 6 cashar deetana anigoo shaqo badan ku jira inaan usoo hadlan kuusi 6 cashar nooga maqnaata casharadan ku dhamaystirnay anaguna waxaan ogeyn casharka maanta aan duubayno kaliyaatay inuu nagu harsan yahayba soo tirsan kula casharada soo tirsatay waxa kale jiray maalmaha qaarkood ardaygu markuu cunto cajiina sameynayo kale intaanu sameyno oo cajiinka uu xashto sida daqiiqdo kale ayuu yara dhigay marka waxa u baahnaa taasoo kale inuu de saacada sugo ama minida sugo deetana arday kaloo diyaaraan waxaan gelinay goobta inuu ardaygaasi sii sameeyo cuntadiisa kan kalena hadhow tiro si loogu daba qabto waxaa garanaya kuley nimanka yaqaanaa fiidiyoyada duuban baa fahmi kara waxaan ka hadlayo inaan iyada laftigeeda weydiinin inuu lahayn miyaad dharkii hore iska bedelin oonad ardaygan waad kaga qaaday kan kalena aanad huwanin waxaa jirta iyadoo mararka qaarkood programka bartanka kaga jirta in iskaba qoslisay bal markaa qaladaadkaas oo dhan iyada laftigeeda wariyaha inaan wareysanaan dooninayo waa tan tan qosolka haddaan imaado horta waxaan ku qosliyey ardaygu cuntadu sameynayay siduu ugu dhaqsanayay anagu saan ugu dhaqsanayay sidaan ugu hungoroonaynin taasaa qosol ahayd maalintii noogu qosolka badneed waxay ahayd maalintii 12 cashar aanu samaynay ay 12 ardayba ku dagaalamayeen anaa samaynaya iyo anaa samaynaya filsanay haddaan kaaga jawaabo su-aashan waxaa keenayay annakoo maxay tolahaydi duubayna oon haddana moodayn inay barnaamijyo kale harsan yihiin barnaamijyo badan annakoo duubayna ayn haddana moodayn inay barnaamijyo kale harsan yihiin oo ku qarweynay waxaan doonayaa inaan sameeyo walaal kalluun magaciisa la yidhaahdo vegetable fish with mashed potato kalluunka waxaa raacaysa qudradan oo waa vegetable waxaa la vegetable fish isaguna waxa weeyaan waxaa raacaysa iyaduna waxa vegetable-kan hagaag daawadayaal waxaynu taaganahay gabagabadii barnaamijka waa daawateen ardayda intii qaladaadkooda muuqaaladii hore la duubay bulshada lala wadaagay galay dib loo daawasiiyey ee la yidhi ka jawaaba qaladaadka gasheen si aanay dib ugu noqonin imaka gabagabadii bayn taaganahay aanu imaado ugbaad cali cabdi ugbaad ayadu markay sharaxaysay saa soo daawateen baa dusha ingiriisi bay ku sharaxday dadka ay wax u gudbinaysay waa soomaali cidda wax u dhigtay waa soomaali iyay wax u sharaxaysay baa la isweydiinaya maadaamay ay tamyada kala duwan halka magacyadooda ay kor kusoo xustayba ingiriis bay ku wada sharaxday ugbaad sababta aad ingiriisi ugu sharaxday yaad la hadlaysay soomaali lama hadlayn miya asalaamu calaykum anigoo magacaygu yahay ugbaad cali cabdiweli waxaan doonayaa inaan ka jawaabo su-aasha ah casharkii aan soo gudbinayay badankiisa english baan ku sharaxay waana ogahay communitigeena waxa weeyaan waa wada soomaali dadka daawadayaasha barnaamijka dhegeysanaya waa soomaali laakiin anigu horta marka koowaad kumaan jirin inaan english kusoo gudbinayay inaan la qabsanay englishkan waxaa keenay master chef baanu nahay 6 bilood ayaanu 3 bilood baan imika dhameeyay 3 bilood baa hadhay laakiin 3 bilood aan dhiganayba waxa laaliyo waxaan ku bartay waa english marka way iga qabsatay inaan kan english ku sheego kan kale english ku sheego kan kale english ku sheego marka waxa sababay inaan ku wada sheego casharkaygii english anigoon maskaxda ku haynin waan ku qaataa especially waxa fiican qofku mar hadduu master chef yahay inuu mostly english ka garanayo waayo hadhow toole waa laga baxaya iskuulka qof walba wuxuu u baahan yahay inuu shaqo tago menu baad doonaysaa in la diyaariso dee menu haddii soomaali lagu qoro marka tagtaan hodheelada waad aragtaan waxa ku qoran waa english so marka waxaan malaynayaa anigu qof aan maanta fahmin english ma jiro waxaan doonayaa inaan idiin sharaxo horta menu-gu waa maxay menu-gu waa buugga markaad hodheelka tagto cuntada laga dalbanayo buugga menu-gu kuma baxo soomaali wuxuu ku baxaa english marka taas wayba keentay inaan english ku hadlo hagaag daawadayaal intaas ayaanu kusoo koobaynaa programkeennii ama barnaamijkeennii ama bandhigeennii gaarka ahaa ee ahaa barnaamijka iska kaashadeen saab t v iyo sky top chef intaanu ku kulmayno barnaamijyad kale oo xiiso badan oo bulshada dabcan faa'iido u leh nabadgelyo waa hagaag daawadayaal intaasi ayaynu kusoo koobaynaa barnaamijkii bisha barakaysan ee rabadaan socday ee saab t v a ka daawanayseen ee ay iska kaashadeen sky top chef iyo saab t v
ciid wanaagsan baanu idin leenahay dhammaan